bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka maanta aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Portugal oo guul weyn ka gaaray xulka qaranka Czech Republic, Spain oo guuldaro kala kulantay Switzerland. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan aad ku cusub tahay like noo saar, subscribe iyo share gareysi barnaamijkana asxaabo badan u gaaro mahadsanidina. Xulka qaranka Portugal ayaa guul weyn waxa uu ka gaaray xulka qaranka Czech Republic. Czech Republic ayaa dhankooda waxay heleen rigooro ay ku soo noolaan lahayn ciyaarta, inkastoo markii dambe ay rigooradaasi ay iska khasaariyeen. Diego Dalot ayaa isku rogay goolaliyaha xulka qaranka Portugal qaatayna burhaantii Cristiano Ronaldo, isagoona garoonka dhex joogay 90 daqiiqo awoodi waayay in uu shabaqa soo taabto, waxaana uu Dalot dhaliyay 2 gool oo labada qeybood ee ciyaarta, halka labada goolna ay kala dhaliyeen Bruno Fernandes iyo Diogo Jota. Xulka qaranka Portugal oo martida ahaa ayaa waxa uu hogaanka ciyaarta ay u qabteen daqiiqadii 33aad. Diego Dalot gool uu bedelay kubad uu ka helay Rafael Leo, halka daqiiqadii ugu dambeeyay qaybtii hore ciyaartana goolka labaad si raacisay sidii xidiga Bruno Fernandes. Xulka qaranka Czech Republic oo fursado badan iska khasaariyay ayaa heshay rigooro waqtigii dheeriga ee qaybtii hore, waxaana loo dhigay rigooro laga soo hubiyay aaladda VAR kadib markii Cristiano Ronaldo gacanta ku taabtay kubad koorna ahayd oo uu doonayay inuu difaaco. Hase yeeshee Patrick ayaa rigooradaasi ka lumiyay xilkiisa isaga oo birta dulmariyay. Markii dib la isugu soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta, Diego Dalot ayaa dhaliyay goolkiisa labaad ee kulanka. Xidiga ayaa si weyn ugu dabaaldegay goolkiisa labaad ee ciyaarta, halka waqtiga dambe ee goolka afraad raaciyay Diogo Jota oo bedel ku soo galay. Cristiano Ronaldo oo gool raadinaya ayaa garoonka ka baxay isagoo dhiigiisa ku daadanaya dhulka oo uu sanka dhaawac ka soo gaaray, isagoo aan isku qorin diiwaanka goolasha, iyadoo tababare Fernando Santos uu ogolaaday inuu dhameysto ciyaarta maadaama ay waqti la'aan ay ku hayso Manchester United oo bedel sugo waqti kooban ee ciyaarta ay ka harsan tahay. Guushan ayaa ka dhigtay Portugal in ay hogaanka u qabtaan gruubkooda, waxayna haystaan 10 dhibcood oo ay ka heleen 5 ciyaarood ay ciyaareen, waxayna hogaanka ay kala baxeen Spain oo guuldaro 2-1 ay kala kulmeen Switzerland oo marti ugu ahayd magaalada Zaragoza. Xulka qaranka Spain oo aan la imaan bandhigiisa ciyaareed ee looga bartay ayaa u ogolaaday daafaca dhexe ee Switzerland Manuel Akanji xagaagii tagayna ku biiray kooxda Manchester City inuu shabaqa soo taabto daqiiqadii 21aad, waxaana goolkan ahaa midkii kaliya ee garoonka ka dhashay qaybtii hore ciyaarta. Jordi Alba ayaa markii dib la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta soo celiyay niyadda Spain oo uu dhaliyay goolka caawintiisa lahaa Marco Asensio. Hase yeeshee waxay ka liiteen daafac iyo khadka dhexe oo ay Switzerland si fudud ay isaga dhex soconayeen, waxayna fursad kale siiyeen xidiga Immobile oo uu kubad u soo dhiibay Akanji, sidaasina goolka labaad looga dhaliyay xulka qaranka Spain. Xulka qaranka Spain ayaa lagala baxay kaalinta koowaad ee gruubkana. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan aad ku cusub tahay like noo saar, subscribe iyo share garey si barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro mahadsanidina.